بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إلهي سبحانه وتعالى مهد ما أنت تسكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan dib u bilaabi doonaa barnaamijkeenii xukuradsi oo aynu muddo badan oo ilaa 5 sano aynu wadnay. Markii noogu dambeysay waxaynu wadnay buuggii 76. insha Allah taala dib baynu u bilaabi doonaa halkii baynu ka soo wadan doonaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ihsaan Media iyo gudoomiye Cali Namadoon oo hawshan qayb weyn ka qaatay barnaamijkan sida quruxda badan inoogu duubay. aad iyo aad u mahadsanyihiin. waxaan faalayn doonaa buugga 77aad. waxaan soo qaadan doonaa buugga la yiraahdo barbaarteena iyo baraha bulshada. buugga barbaarteena iyo baraha bulshada waa ciwaanoosaadkiisuna yahay hagid iyo hagaajin. waxa qoray asalkiisa Dr. Cabdikariim Bakaar waxaana af Soomaali u turjumay Cabdixakiin Absiye oo ah turjumaa iyo qoraa inta ugu badan imika buugta af Soomaali u turjuma. waana turjumaaga buugga la yiraahdo sanaad bay dhaaftay iyo dhambaalada quraanka. buugga la yiraahdo barbaarteena iyo baraha bulshada qoraagu wuxuu kaga warramayaa caruurta iyo qaabka ay u isticmaalaan baraha bulshada, halista uu leeyahay baraha bulshadu iyo sidoo kale faa'iidooyinka iyo waxyaabaha laga dheefo baraha bulshada. ugu dambeyn wuxuu soo gabagabeynayaa saameynta uu yeelan karo baraha bulshadu iyo sidii qofku uu la tacaali lahaa ama u yareyn lahaa baraha bulshada. barbaarteena qoraagu wuxuu ku sheegayaa inay yihiin caruurta. af Soomaali ahaan caruur iyo ubad iyo barbaar intaba waa la yiraahdaa inkastoo stage iyo xaalad ay kala leeyihiin. ubadku waxa la yiraahdaa waa nimcooyin Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo cidda uu doonana una siinin. marka caruurtu waxay u baahan yihiin barbaarin, caruurtu waxay u baahan yihiin ilaalin. caruurtu maadaama u baahan yihiin ilaalin waqtiga hadda aynu joogno waxa dunida ka dhacay isku furan. dunida hal qol bay noqotay. baraha bulshada iyo internetku saameyn weyn buu ku yeeshay. si gaarana dadka uu saameynayo ay tahay barbaarintooda iyo sidii hore loo barbaarin jiray si ka duwan in dib loogu noqdo waa caruurta weeyaan. qoraagu marka wuxuu leeyahay dunidii maadaama ay noqotay duni bilaa halbeega oo qofkii halyigii iyo kii hacowgii qofkii waala iyo qofkii hagaagsanaa intiiba ay hal meel isugu yimaadeen oo ayna lahayn halbeeg lagu kala duwo. waxa muhiima caruurta iyo baraha bulshada qaabka ay u isticmaalayaan inuu waalidku ka warhayo uu kantaroolo iyagana markaa caruurtii uu ku ilaaliyo. baraha bulshadu xoga cajiib ayaa la isku dhaafsadaa, aalado kala duwan baa la adeegsadaa. qoraagu wuxuu soo gudbinayaa xog ahayd baraha bulshada qaybihiisa kala duwan iyo sida loo kala adeegsado. hay'adda isxilqaantay baa sanadkii 2016 waxay samaysay bal xog qaabkii loo kala isticmaalo qaybaha baraha bulshada. YouTube-ka oo kale sanadkaasi waxay tiri waxa adeegsada dadka badan 1 bilyan. Facebook oo kale waxay sheegtay hay'adaasi inay adeegsadaan dad ka badan 1 bilyan iyo kala badh. Twitter-ka isaga laftiisa waxa adeegsada bay tiri 316 milyan dad ka badan. ka loo yaqaano Instagram-kana isna waxa adeegsada dad ka badan 400 milyan. aaladaha kala duwan ee dadku adeegsanayaan oo dadka qaarba si ay u adeegsadaan qaarba ujeeda ay u adeegsadaan. waxa muhiim ah marka bal caruurta iyo qaabka iyaguna ay ula falgalayeen inaan eegno. caruurtu inay baraha bulshada la qabsadaan oo ay isticmaalaan oo ay mataqaanay iyaga laftooda qayb ka yihiin maxaa sababa? koow waxa sababa ku dayashada waayeelka iyo waalidkood dadka ku hareeraysan, hadday tahay walaalahood, hadday tahay waalidkood, dadka ku hareeraysan ee isticmaalaya barihii bulshada saameyn bay ku leeyihiin. ilmihii markuu arko hooyadii ama aabihii ama walaalkii oo isticmaalaya Facebook-gii iyo YouTube-kii iyo waxyaabo la midkii isaguna wuxuu oranayaa bal tijaabi oo soo eeg. marka ku dayashada waalidku qayb bay ka tahay. lambarka labaad jiritaan la'aanta agabka caruurtu ay ku madadaashaan ama agab u gaar caruurta oo aan jirin. caruurtu markasta waxay u baahan yihiin marka ay yar yihiin inay waxyaabo ay ku ciyaaraan ay samaystaan. waxyaabo bariga hore ee miyiga la joogay dadkeenu waxay u badnaan jireen waxay isticmaali jireen ciyaaro badan. habeenkii oo kale dhumaalaysi baa la ciyaari jiray.
dadka qaarkood waxay ciyaari jireen yani ilaa xilliyo dambe ay ku gaari jireen sheekooyin uu ayeyda oo kale iyo awowgii ay u sheegan jireen carruurta waxyaabahaasoo dhan madadaala yihiin dee markii dunida isku furan dhacay barihii bulshada iyo internetka xoogeystana carruurtii markaa agab u gaara inay helaa waa muhiim marka agabkaas oo aan jirin carruurtii halkoodii waxay gelinayaan baraha bulshada ama waxay isticmaalayaan baraha bulshada qodobka saddexaad ee carruurta ku sababaya in adeegsada waxa weeyaan carruurtii oo inta ugu badan markay iskuulka ka yimaadaan aan waxqabad kale aan haynin xaafadii bay joogaan markay waxyaabihii dee ka caajisaan ay qabanayeen inta ugu badan waxay isku dayayaan barihii bulshada inay galaan sida youtube-ka oo kale inay ciyaar ka daawadaan inay wax ku qoraan inay maaha iska galaan bilaa ujeedo ayay markaa keenaysaa markaa sababaha ay ka midka yihiin ku dayashada agab ciyaareed oo aan jirin ama agab madadaalo iyo daalka iyo waxyaabaha faraha badan waqtiga ay faraaqada ay haystaan ayaa keenaya carruurtu inay baraha bulshada ay isticmaalaan waxaa muhiima markaa qoraagu wuxuu isweydiinaya shay kasta oo dunida yaala wuxuu leeyahay faa'iido iyo khasaaro leeyahay dee baraha bulshada dhammaantii khasaare ma wada laha faa'iidana ma wada laha laakiin khasaarena wuu leeyahay faa'iidana wuu leeyahay marka qoraagu wuxuu sheegayaa faa'iidooyinka baraha bulshadu maxay yihiin faa'iidooyinka baraha bulshadu qodobka koowaad waxa weeyaan baraha bulshadu wuxuu isku xidhaa dhaqanada dunida ku yaala ayuu istusaa ama isku xidhaa ama isku keena waxaa jira boqolaal dhaqan oo dunida yaala oo kala duwan oo cid kasta dhaqan gaara ayay leedahay marka dhaqanada kala duwan ay dadku leeyihiin caalamka ayuu barihii bulshadu istusaya oo isku keenaya qodobka labaad baraha bulshadu wuxuu adkeeyaa xiriirka bulshada dad fara badan oo udiis ku dhaweystay oo laba dal iyo laba qaaradood iyo laba meelood oo kala duwan jooga inay isku yimaadaan oo is arkaan baraha bulshada sababay qodobka saddexaad baraha bulshadu waa dugsi waxbarasho waa meel wax laga barto waxaa jira meelo fara badan oo youtube-ka ama mataqaanaa facebook-ka ama pagesa oo dadku aqoonta ay doonayaan ay ka baran karaan qofku aqoon aan dugsi lagu dhiganin ama jaamacad lagu dhiganin wuu ka baran karaa marka waa dugsi waxbarasho qodobka ku xiga wuxuu ka qayb qaataa baraha bulshada wanaajinta wacyiga guud ee bulshada bulshadu waxay u baahan tahay in la hago oo la hagaajiyo wacyigeeda baraha bulshada uu ka qayb qaadan karaa tusaale haddaynu soo qaadano diinta lagu faafiyaa dadka khayr loogu sheegaa dadka wanaag lagu sheegaa dadka waxyaabo wanaagsan oo khayr leh lagu gaarsiiya marka jahayntii bulshada iyo wacyigii bulshadana qayb buu ka qaadanaya qodobka u dambeeya facebook waxaan jeedaa baraha bulshada waxaa laga helaa fursado horumarineed oo qofku nolosha ku wadi karo qofku wuxuu ka helayaa horumarin iyo xirfado noloshiisa uu kusii wadi karo oo isaga baritaan ayuu ka helaya intaa marka laga yimaado baraha bulshadu wuxuu leeyahay dhibaatooyinna wuu leeyahay dhibaatooyinka waxaan ka xusi karnaa dhib guud buu leeyahay dhibta guud waxaa ka mid ah qofka xagga waktiga oo kale waxaa laga yaabaa inuu qofka kaga khasaariyo oo qofku wakti fiican oo ku qabsan lahaa dana kale inuu baraha bulshada iyo youtube-ka iyo waxyaabaha lamidka uu ku khasaariyo ama uu ku dhaco baraha bulshadu inta badan wuxuu dilaa akhlaaqda iyo asluubta inta xilligan aynu marano waxaynu arkanaa dunida waxyaabaha ka socda ama baraha bulshada soomaalida waxyaabaha ka socda waxyaabahan dhaqanka iyo diinta aan ku wanaagsanayn ayaa markaa ka socda marka baraha bulshadu dhaqanka iyo akhlaaqda wuu dilaa qodobka ku xiga wuxuu keenaa caruurta iyo dadka lamidkii haddaan la kantaroolin inay ka daawadaan muuqaalo aan fiicneen ama muuqaalo aan wanaagsaneyn oo aan qofka caqligiisa iyo garashadiisa iyo guud ahaan noloshiisa aan fiicneen marka maadaama wixii iska furan yahay oo qofku wuxuu doono uu ka helayo wuu ku qoraya wuuna ka helaya taasina markaa saameyn togan ayay qofka ku leedahay saameyn taban bay qofka ku leedahay noloshiisa way keenaysaa waxay keentaa qabatinka wax loo yaqaano ama qofka inuu caado ka dhigto oo uu la qabsado waxaad arkaysaa qof xilliga wax cunayo xilliga uu seexanayo iyo xilliga uu waxbarasho tegayo iyo xilliga uu shaqaysan lahaa intaba baraha bulshada adeegsanaya marka barihii bulshada qofku wuxuu seejinayaa noloshiisa waxyaaba badan oo muhiim ah tusaale ahaan waxaa laga yaabaa xaafadda ay family ama caruuri ku nool yihiin hooyii aabana ay joogaan inaan la is arkinba hooyadii qol bay ku jirtaa aabihii qol buu ku jiraa caruurtii qolqol bay ku jiraan mid kasta mobilkiisa ayuu ku jeedaa marka wax alla wax gurigii ka socda cid soo gashay iyo si jirta markaa lama socdo marka barihii bulshadu wuxuu keenayaa markaa in bulshadii kala mashquulsho oo qoyskii xilliga ay sheekaysan lahaayeen xilliga ay kala warqaadan lahaayeen xilligii xataa waalidku caruurta uu cashrada u dhigi lahaa ama uu ka eegi lahaa in barihii bulshada lagu qaato ayay keenaysaa qodobka u dambeeya baraha bulshadu wuxuu keenaa dhibaato ku timaada caafimaadka iyo qofka hadday tahay caafimaadka maskaxdiisa iyo guud ahaan qofka jirkiisa iyo maskaxdiisa qof markuu waxba cuni waayo qof markuu seexan waayo caafimaadkii maskaxdiisa
iyo kii kale ee wax keenaysa markaa intaba markaa wax ku imanaysa caafimaad darro. qodobka ugu dambeeya waxa weeye xalka baraha bulshada muxuu yahay. xalku wuxuu yahay in la maareeyo baraha bulshada, qofku inuu joojiya macquul ma, laakiin waa inuu maareeyo oo wixii uu yareeyo xilli macquula iyo si macquulna uu isticmaalo. qodobka labaad wacyigelin, waa in ubadka iyo carruurta iyaga laftooda la siiyo wacyigelin ku saabsan baraha bulshada, sidii qaabka togan looga fadhiistan lahaa, qaabka tabana la iskaga ilaalin lahaa in carruurta iyo mataqaanaa dadka la siiyo wey. qodobka ku xiga waxa weeye dareen bulsho, maadaama uu leeyahay dhibaatooyin fara badan, bulshadu si ay faa'iidooyinkiisa uga warqabto waa dhibaatooyinkiisana uga warqabto oo dareen bulsho iyada laga keeno. qodobka afraad tusaale wanaagsan, waa in waalidku carruurta u noqdo tusaale wanaagsan oo barihii bulshada ay iskaga ilaaliyaan oo ay barihii bulshada ku kantaroolaan. qodobka u dambeeya xiriirka qoyska oo la xoojiyo oo dad barihii bulshada la isku dayo in la yareeyo, xiriirkii qoyska dhexeeyana la xoojiyo. guud ahaan buu galaanaa barbaarteeda iyo baraha bulshada nuxurkiisu waa intaa. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala wuxuu laga fahmay aad baad u mahadsantihiin.